أمل عانى وعدل نسيه عيدا 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 ما انت عيد ونكسا عيدا عزي وشرفي فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة عزي وشرفي فرحتك عيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وأنا ورقصن داودي شقي وهي قدرتنا مدن مركز تدريدك جوجتان kusoo dhawaada aad ujeedna twig fadlan subscribe saar channelka dadka cusub tahay nagu soo biir si aad u hesho muuqaalo iyo cashar kala duwan oo ku saabsan dhanka aqoonta iyo dhanka teknolojiyadda iyo dhammaan qaybaha kale ee nolosha aynu ku noolnahay la xiriira aad baad baxsantay daawade haddii aan adigu cusbayn like iyo share tahay ilaa marka muuqaalka dhamaysto daawade yeel kusoo dhawaada waa mar kale iyo cashar kale oo cusub oo ku saabsan barashada luqadda ingiriiska hadda casharkan uu ka duwan yahay casharadii aan kusoo qaadan jirnay luqadda ingiriiska gaar ahaan qaybta basiga ama waxa weeye asaaska luqadda ingiriiska oo aynu kusoo qaadanay dhowr cashar qaybtani waa qayb kale oo iyadu waxa weeye ka sareysa qaybihii hore ugu soo diyaarin jirnay way qaybahaas waxaan basic kuna laakiin waa qayb dhexdhexaad ah oo ku saabsan dhanka mawduucyada welibana qaybta topics-ka loo yaqaano ee insha Allah taala ugu talagalnay waxaan ugu talagalnay ka faa'iideystaan daawadayaasha kale waxa weeye aqoontooda ay ka sareyso basic Englishka oo ay intermediate ama dhexdhexaad tahay isla markaana sidoo kale advanced haddii ay yihiin laftooda marka qaar way u baahan karaan mawduuc diyaarsan oo waxa weeye ay xadhud hole bulsho ama waxa weeye meel ay kaga hadli karaan ama waxa weeye ay la hortagi karaan haddii meel lagaga soo diro kale sida jaamacadaha kale ama waxa weeye qaybaha kale ee kala duwan ee aqoonta lagu dhigto heerarkeeda kala duwan haddaba daawadayaal qaybtan waxaan kusoo qaadan doonaa topic ka hadlaya asluubta iyo anshaxa ama topic about ku saabsan discipline marka discipline waa akhlaaqdii ama waxa weeye anshaxii asluubtii marka diinteena islaamkuna wayna fartay maadaama in bulsho ku dhex noolnahay markasta inaynu akhlaaqda iyo dhaqanka ilaalino oo dadka akhlaaq wanaagsan kula dhaqano waa muhiim haddaba lecturekeenu si toos ugu gudageli doona lecture about ku saabsan discipline waa anshaxa first marka koowaad thanks to Allah ilaahay ayaa mahad iska leh second marka labaad I am very delighted aad baan ugu faraxsanahay bimacna happy ayaa la macnaan to appear inaan kasoo muuqdo in front horta of my classmate students ardayda aan isku fasalka nahay classmate students waa ardayda isku fasalka tihiin and my dear teachers iyo macallimiintayda qaaliga third marka saddexaad I am greeting waxaan salaamayaa my audiences dhegeystayaashayda participants ka qayb qaatayaasheeda and other guests iyo martida kale those kuwaasoo sacrificed usoo huray their precious time waqtigooda qaaliga precious time waa waqtigooda qaaliga wala precious waa qaali time waqti marka their precious time waqtigooda qaaliga to listen say u dhageystaan my effective lecture khudbadayda waxa weeye wax ku oolka effective khudbadayda wax ku oolka about ku saabsan the basic issue arrinka asaasiga basic waxa weeye asaasi issue-na waa arrinka asaasiga about ku saabsan society bulshada or amaba the backbone laf dhabarta of human ethics akhlaaqda iyo asluubta bini aadamka yani laf dhabar waa ama asaas u ah which is taasoo ah discipline anshaxa so sidaa darteed if I go down haddii aan hoos ugu dhaadhaco the essence nuxurka essence waa nuxur of my lecture khudbadayda as you know sidaad ogsoon tihiin every child ilmo kastaaba comes from wuxuu ka imaadaa a family qoys which is led kaasoo ay hogaamiyaan by parents waalidiintu maana waalidku ay hogaamiyaan ay ku hogaaminayaan to be polite inuu noqdo ilmaha yari mid akhlaaq leh oo ramaba impolite mid bila akhlaaqa oo aan akhlaaq lahayn and there is all English which says waxa jirta mahmaah hore oo ingiriisiya oo tiraahda behavior dhaqanka of the parents waalidiintu is an education waa waxbarashada for children caruurta marka waalidku siday yihiin ayuunbuu ilmuhuna noqdaa marka ilmaha ageeri markaad adigu kolba qaabkaad u dhaqmayso waa sidii ilmihii yaraa oo ku baranaya oo waxbarashadii uu baranayo oo kale ayaad uga dhigan tahay marka kolba wixii uu arko wixii uu ka maqlo ayuubu waxa weeye isaguna sideeda uu u qaadanaya oo uu dhaqankeeda yeelanaya so sidaa darteed it is our duty waa waajibkeena duty waa waajib to educate inaynu barno
our mothers hooyooyinkeen, wives xaasaskeena, sisters walaaladeen, daughters hablahan inagu dhalanay ama hablaheena. Because sababtoo if you educate hadaad barto a man nin waxaad barto, you educated waxaad wax bartay one person hal qof. But laakiin if you educate hadaad barto a woman gabadh, you educated waxaad wax bartay the whole community bulshadan ayaad wax bartay. marka haddaad gabadh hal qof nin aad wax barto waxay ka dhigan tahay qof ayaan baad wax bartay. haddii laakiin gabadh aad wax barto waxaad ka dhigan tahay adigoo bulshada wax baray. sababtoo hooyadu waa aasaaska nolosha. meel kasta lagama maarmo dumarka ama haweenka. sababtoo ilmihii yaraa beritoole mustaqbalkiisii iyada toosinaysa oo waxa weeye gurigii iyo waxa weeye mas'uuliyadii ilmaha yar iyo caruurteenaba qaadaysa. mustaqbalka ayaa u baxay noo soo baxaya iftiimaya beritoole loo baahan yahay waddankooda wax ka bedelaan. cidda soo saaraysa waxa weeye waa hooyadii. marka hooyadu waa maxay? laf dhabar ayay u tahay nolosha. dee waxaana la yidhaahdaa nin waxa weeye nin kasta oo guulaysta maxaa ka dambaysa? gabadh ayaa ka dambaysa. waayahay according to marka loo eego our golden religion, diinteena dahabiga waxay leedahay oo ina faraysaa seeking raadinta a knowledge aqoontu is an obligation. waa waajib ayay ku tahay for every muslim qof kastoo muslima, whether ha ahaado male lab or female ama dhadig. finally ugu dambeyntii I am thanking waxaan u mahadnaqayaa my honorable participants ka qayb qaatayaashayda sharafta leh and dear preceptor iyo macalinkayga ama hogaamiyahayga qaaliga whose gratitude kaasoo mahadcelintiisa gratitude waa mahadcelintiida can't be repaid aanan bixin karin ama aanan gudi karin. and students iyo ardayda those kuwaasoo listened to me ii dhagaysanayay carefully si taxadar leh. so sidaa darteed thank you waad mahadsantihiin. insha allahu taala intaasaan kusoo koobi doonaa intaan lamida casharkan ku kulmi doona. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.